بريبريا كمدا بقر ayaa xidhay nin ka soo jeeday mid kamid qabiilada Carabta qabiilkiisii oo wada socdaayeen oo mid boqorkii iyaga oo aan u kala hadhin wadaad iyo warar laba si ay uga soo saaraan jeelka boqorkana uga sasabaan boqorkii ayaanay hor istaageen waxa uu ku yiri boqorkii waa ninkan dartiis ku soo wada raacdeen eed u kala hadhi weydeen cod kaliya ay ku wada yiraahdeen waa amiirkeygii boqorow waxa uu ku yiri boqorkii muxuu isugu ka sheegi waayay inuu amiir yahay dadkii qabiilka ayaa ku yiri ma doonayo inuu isku ka duleeyo oo uu mansibkiisa ku sheegto ee waxa uu rabay inuu qiimihiisa ku tuso dadkiisa uu sii daayay boqorkii markiiba isagoo cudur daaranaya maalmo kadib waxa uu maqlay boqorkii inaanu ninkii ahayn amiir iyo nin mansab haystaba ee uu ahaa nin geeljira ah oo aan wax darajo ah haysan waxa uu u diray boqorkii fariin uu ku weydiinay sababtay waxa uu sameeyeen waana u soo jawaabeen iyaga oo leh amiir iyo khayr toona ma lihin haddii uu duloobo kaayaga miskiinka ah ee arigiisa raacanaya dulucda sheekadu waxay tahay khayr ma laha ummad lumise xaqa kooga tamarta daran